Abaaro ballaaran ayaa ka jira dowlad deegaanka Soomaalida oo ogaadeynaya abaaraha soo saameyn weyn ku yeeshay dadka shacabka iyo sidoo kale xoolaha ay dhaqanayeen. Abaarahan ku habsaday deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay shacabka saameyn weyn oo u sii keensanayay mid biyo la'aaneed, daaq la'aaneed iyo sidoo kale mid xaalad adag ah. Abaarahan ku habsaday deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobollada dhexe iyo sidoo kale abaarahan ku habsaday dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale guud ahaan deegaanka Soomaalida ayaa keensaday xaalad bini'aadantinimo tii ugu xumayd, sidoo kale biyo la'aaneed iyo sidoo kale daaq la'aan. Kun oo xoolaha kala duwan ee dadku dhaqdaan ayaa dhimanaya biyo la'aan iyo sidoo kale daaq la'aan. Abaarahan oo sidoo kale ku dhacay ayakuna jubbooyinka iyo sidoo kale guud ahaan geeyiga Soomaaliyeed oo keensaday sababo roob la'aan awgeed ayaa xaalad adag ku sii abuuraya marba marka ka sii dambaysa nolosha iyo sidoo kale jawiga ay ku jiraan dadka shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan geeyiga Soomaaliyeed. Abaartan ayaa sidoo kale gaar ahaan saameyn weyn ku yeelatay dowlad deegaanka Soomaalida. Abaartan ayaa keensatay kadib markii la waayay roobkii dayrta oo ay dadku jiilaalku si xiriir u sii galay. Abaarahan ayaa ku habsaday dadka Soomaalida ayaa abaaro aad u ba'an bini'aadantinimo dhan walba, biyo la'aan, daaq la'aan iyo sidoo kale calaf la'aan xoog badan oo soo food saartay xoolihii dadku dhaqanayeen. Dadka Soomaalida ayaa boqolkiiba 70 xoolo dhaqato ku nool xoolaha kala duwan, sidoo kalena xooluhu ay u baahnaayeen mar walba dalag inay helaan, balse dalagyadii kala duwanaa ee ka bixi jiray dhulka Soomaalida ayaa la waayay. Sidoo kale dhanka kale beeralayda ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay. Dadka reer guuraaga ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida gaar ahaan kuwa reer guuraaga iyo sidoo kale kuwa tuulooyinka ayay ku habsatay biyo la'aan baaxad leh oo ay ku jiraan marxalad adag oo biyo dhaamis ah. Haddaba jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya Jowxo ayaa ka hadashay mar kale qayladhaan u dirtay dhammaan dadka ay khusayso arrimahan. Jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya Jowxo ayaa sheegtay in maanta lagaga bixi karo xaaladan adag ay ku jirto in dadka shacabku isku tashadaan, sidoo kalena dowlad deegaanka Soomaalida dalka iyo sidoo kale dowladda Itoobiya deeq bixiyayaasha iyo sidoo kale qurba joogta u dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida inay ka caawiyaan xaaladan adag ee dadku ku jiraan ayaa lagu yiri qoraal ay ku qortay jabhadda ONLF ayaa muddooyinkii dambe si adag uga hadlaysay xaaladda abaarta ee ku habsatay dowlad deegaanka Soomaalida. Tan iyo waxaad moodaa intii abaartani ku dhacday dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dowlad deegaanka Soomaalida in aan hoos loo fiirinaynin balse lagu mashquulsan yahay colaadda ka aloosan Itoobiya. Dadka shacabka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayay soo food saartay abaar bini'aadantinimo ku dhacda tii ugu xumayd. Abaartan ayay sidoo kale u dheertaan xoolihii ay dhaqan jireen gaar ahaan kuwa dowlad deegaanka Soomaalida. Mar hore bilowga 3 bilood ka hor ayay timaaday in ay dhintaan xoolaha gaar ahaan kuwa geela, balse haddana dhammaan xoolaha ayaa dhimanayo sababo la xiriira calaf la'aan, cudur iyo sidoo kale biyo la'aan soo food saartay xoolaha ay dhaqanayeen dadka dowlad deegaanka Soomaalida oo ahaa dad ku nool intooda badan xoolaha iyo sidoo kale celceliska noloshooda ay ku ilaashadaan xoolaha. Haddaba jabhadda ONLF ayaa sheegtay in shacabka maanta loo baahan yahay in loo gurmado, sidoo kalena ay ku jiraan xaalad adag oo bini'aadantinimo. Sidoo kale qurba joogta dowlad deegaanka Soomaalida ogaadeynaya u dhalatay ayay jabhadda ONLF baaq u dirtay in ay soo garab istaagaan dadka shacabka Soomaaliyeed.